maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad ayaa maanta xukun isugu jira dil iyo xabsi waxa ay ku riday rag ka tirsan ciidamada booliiska iyo militariga. Dable Aadan Maxamed Xasan oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa lagu xukumay dil toogasho kadib markii lagu eedeeyay inuu dil u geystay marxuum la oran jiray Sheekh Cali Axmed Xasan oo u geeriyooday xabad uu ku dhuftay askariga. sidoo kale Isaaq Boorow Cali oo maqnaa goobta isla markaasna la sheegay in uu yahay Al-Shabaab waxay maxkamadda ku xukuntay dil toogasho halka Dable Maxamed Nuur Ibraahim oo ka tirsan ciidanka qalabka sida lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah iyo qori ka ah. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaanle dhexe Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka maanta maxkamadda ku dhawaaqday. markay 29 bishii 9 2018 saacaduna ay 10 subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay eedeysana gacan ku dhiigle Dable booliiska Aadan Maxamed Xasan Ibraahim oo loo yaqaan boqol in Faadumo Arbo Xuseen 24 jir ah u dhashay deegaan Baydhabo ka tirsan ciidanka booliiska rugta Cabdishire degmada Baydhabo taasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si bareer ah oo loo kac u dilay taariikhdu markay ay 13 bishii 8 2018 marxuum la oran jiray Sheekh Cali Axmed Xasan ina Aamino Aadan 65 jir ahaa kadib markii uu hal xabo AK47 afsaar ah madaxa kaga dhuftay isla goobtiina ku geeriyooday. dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii uu soo gudbiyay xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda 178 suuratu al-Baqara aayadaha 33 45 suuratu al-Maa'ida iyo qodobka 434 xeerka iqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka 19aad xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida. sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in gacan ku dhiigle Dable booliiska Aadan Maxamed Xasan Ibraahim oo loo yaqaan boqol uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo oogay waxaana ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Sheekh Cali Axmed Xasan. cidii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxa uu furan in ay rafcaan ka qaataan. sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad 29 bishii 8 2018 waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah kow Shabaab Isaaq Boorow Cali oo maqane ah 2 Dable xooga 20135 Maxamed Nuur Ibraahim oo loo yaqaan Kooni ina Xaliimo Ibraahim Cali 27 jir ah ku dhashay deegaan Baydhabo ka tirsan ururka 45aad guutada 8aad qaybta lixdanaad kuwaas oo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo kala eedeeyay eedeysanaha koowaad xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad wuxuu ku soo eedeeyay in uu si bareer ah oo uu kac u dilay taariikhdu markay ahayd 29 bishii 5 2018 marxuum la oran jiray X Dable xooga Maxamed Cabdi Cali Aadan isla markaana uu la baxsaday 2 qori AK47 oo ay wateen eedeysanaha labaad iyo marxuumka uuna u galay kooxda nabadiidka Al-Shabaab oo uu horay uga soo goostay. markay dhageysatay marqaati maxkamadda loo horkeenay marag furkooda markay aragtay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha labaad loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fududay. sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in eedeysanayaasha kale ah kow Shabaab Isaaq Boorow Cali oo maqane ah